anigoo ah Sigiriya Cismaan Maxamuud degan xaafadda Kooda August waxaan ku barbaaray isla xaafadda Kooda August waxaan degnaa muddo ku siman 25 sano aqoon fiican waxaan leeyahay bulshada xaafadda ku nool waxaan waxbarashada asaasiga ah ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe sare uga baxay isla xaafadda magaalada Garowe ee Kooda August hadda waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso farceeda Garowe waxaan ku jiraa sanadkii ugu dambeeyay waxaan bartaa maamulka dawliga ee loo yaqaan public administration qodobada ay qorshaysan inaan wax ka qabto xaafadda Kooda August ayaan la wadaagayaa qodobka koowaad waxaan ka shaqeyn doonaa ammaanka xaafadda sida iftiiminta xaafadda wacyigelinta dhalinyarada sida mobile furashada isku haysiga dhalinyarada iyo wax kasta oo aan xumo horseedi kara anoo la kaashan doono dhammaan laamaha ammaanka iyo dowladda hoose waxaan ka shaqeyn doonaa isku xirka booliska iyo bulshada ee loo yaqaan community police qodobka labaad ee aan wax ka qaban doono waxaa weeye nadaafadda inta qashinku ku jiro ayay cudurku ku jiraa sida ogtiin waxaan campaign nadaafadeed ka sameyn doonaa dhammaan laamaha xaafadda Kooda August waxaan kaloo sameyn doonaa wacyigelin guud oo ku saabsan xaafadaha iyo laamaha xaafadda waxaan kaloo sameyn doonaa xaafadaha biyuhu fariistaan waxaan dowladda hoose iyo injineerada kala kaashan doonaa inay xaafadaha u sameeyaan meelo biyuhu ka baxaan waqtiyada roobku da'aan waxaan kaloo sameyn doonaa furista wadooyinka xiran si biyaha roobka xaafadda ay soo fadhiisan laamiyada xaafadda si ay u soo baxdo bilicda xaafadda waxaan laamiyada xaafadda dhammaantood sameyn doonaa dhirayn iyo nadaafadeyn joogto ah xafiiska xaafadda ma jiri doono laan aan xafiis loogu hagaagayn iyo guddoomiye boorsadiisa garabka ku sitaa waxaa jira laamo badan oo bilaa xafiisyo ah waxaan tayeyn doonaa hagaajin doonaa naqshadeyn doonaa xafiiska xaafadda Kooda August ee dayaca baahan uu ka muuqdo qorshahayga ugu dambeeya waxaa weeye daryeelka danyarta xaafadda tiro koobidda iyo ka warqabka danyarta xaafadda Kooda August waxaan muhiimadda siin doonaa dadka danyarta ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba anoo ka shaqeyn doona sidii la isugu xiri lahaa dadka nolosha high levelka ah iyo kuwa lowga ah dabaqadda sare iyo dabaqadda hoose si aan hawshaa u gaarno waxaan sameyn doonaa in bulshada aan isu keeno aan kulamo dheeriya sameeyo kulamadaas oo kasoo bixi doonaan qodobo miro dhal noqon doona haddii ilaahay yiraahdo wadatashi bulsho ayaan la imaan doonaa waxaan la tashan doonaa 35 qof ee halkan fadhida iyo 20 kale ee ka maqan waxaan kala tashan doonaa qorshe walba oo xaafaddan imaan doona waxaan la tihiin marjicii loo laaban lahaa iyo cid wax laga weydiin lahaa xaafadda tan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu ah Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan Cusmaan ahna muwaadin reer Puntland ku dhashay ku barbaaray magaalada Garowe gaar ahaan xaafadda Kooda August waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan guddoonka xaafadda Kooda August 2022 ilaa 2024 hadduu alla igu guuleeyo insha Allah heerkii waxbarasho waxaan waxbarashadii dugsiga hoose dhexe sare soo qaatay iskoolka Imaam Nawawi waxaan ka soo baxay jaamacadda Bariga Afrika kuliyadeeda ee medicine waxaan kaloo koorsooyin ku soo qaatay habka maamulka iyo maareynta khibradeeda shaqo waxaan ka soo noqday waxaan kasoo mid noqday gudoomiyihii ururka ardada ee iskoolka Imaam Nawawi muddadii aan iskoolka dhiganayay waxaan kaloo xubin sare ka ahaa guddoonka ururka ardada jaamacadda Bariga Afrika waxaan kaloo xubin sare ka ahaa ururka dalada ay ku midaysan yihiin gobolka Nugaal waxaan kaloo kasoo shaqeeyay isbitaalka weyn ee Garowe General Hospital waxaan kaloo ka mid ahaa dadkii aadka u wacyigelinayay cudurkii adduunka aadka ugu baafay oo ah COVID-19 oo aan ku ahaa guddoomiyaha wacyigelinta gobolka Nugaal waxyaabaha mataqaanaa ugu talagalay inaan waqtigooda aan ka qeybqaato waxaa ka mid ahaa mashruucii ahaa afuri walaalka mar walba la qabto bisha Ramadaan ee dadka masaakiinta lagu afurin jiray waxaan inta badan oo hadda ka soo shaqeeyay korjoogtooyinka ahaa doorashooyinkii ka dhacay 3 degmo oo Qardho, Ufayni iyo Eid
waxaan kaloo ka mid ahaa mashruucii maareynta iyo maamulka ka hortagga khilaafaadka iyo ka qaybgalka haweenka doorka siyaasadda ee hay'adda CARE bixinaysay. intaa wuxuu ahaa khibraddeeda shaqo iyo maamul oo aan soo shaqeeyey. xirfadaha dheeraadka aan leeyahay wasaa'idkayga waa wax ka mid ah inaan ahaa hogaaminta maamulka xisaabtanka, maareynta khataraha iyo musiibooyinka, diyaarinta waxbixineed. intaa kadib oo ah waxyaabaha mataqaanaa iyo khibradaha aan leeyahay. xaafadda kooda Agosto waa xaafad aad u ballaaran, muddooyin badan guddoomiyaal baa soo qabtay. muddo waxaan xaafadda deganaa 15 sano. xaqiiqdii guddoomiye xaafadeed waxaa igu horeysay aan maqlo waa marka aan waxyaabaha igu kalifay inaan soo sharxo waxaa ka mid ah guddoomiye xaafadeed waa leeyahay laakiin maana maqli jirin adeegyadii xaafaddana mana dhamaystirnayn. Ismaaciil muhiimaddu waxaa weeye anigu waxaan ku barbaaray wax ku bartay magaalada Garowe gaar ahaan xaafadda kowda Agost dugsiga hoose dhexe sare intaba aan uga baxay laayeer jaamacadeed waxaan bartay kulliyadda horumarinta bulshada community development waxaan kaloo haystaa shahaadooyin tiro badan oo sida bulshada loo horumariyo. haddaan u guda galo waxqabadyadayda ama bahalkii waxyaabahan soo qabtay intaan jiray ama joogay waxaan la shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada qaybteeda jandarka. waxaan ku dadaalaa mar walba sida ardayda reer Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ay ku heli lahaayeen waxbarasho tayo leh, gaar ahaan dadka dhibaataysan oo danyarta aan waxbarashada iska bixin karin oo badanaa saan ognahay u badan gabdhaha. waxaan kaloo ka shaqeeyaa ama aan ka shaqeeyay muddo badan si tabarucaad ah xaafaddu si ay isugu xirnaan lahayd ama sida looga warhayn lahaa dadka danyarta iyo xaafadda degan, inkastoo aan weli la shaqaynin guddi xaafadda ka dhisan. maxaa yeelay ma ka warhayo ama haddaan dhowr jeer raadiyey waan waayey xafiis saxa ay leedahay ama si meel saxa aan ugu hagaago. waxyaabaha ay u kalifay inaan isku soo sharaxo ama isku soo taago, inkastoo aan jeclahay inaan guddoomiye isu soo sharaxo laakiin duruufo badan iga hor istaageen. laakiin waxyaabaha inaan isku soo sharaxaa guddoomiye ku-xigeenka ay u kalifay in aan mar walba guddoomiyaha insha Allah guuleysan doono ku doono ma noqdee inaan la shaqeeyo oo waxyaabaha gaabiska jira inaan kaabo ama waxyaabaha markaan u arko inuu isagu ka gaabiyo lana qofku waa bini aadan waxyaabo badan oo waxa jira uusan wada gaari karin. waxyaabaha ay qorshaysan xaafadda inaan ka qabto xaafadda horta kowda Agost waa ammaan alxamdulillah maca daalik way jiraan daldaloolo dhanka ammaanka dhanka amniga. waxay u baahan tahay dhalinyarta xaafadda ku nool ama xaafadda joogta kuwa dhexe kuwa yaryar iyo maamooyinka iyo kulli in la isku xiro si xaafaddu ammaan u noqoto. saddexaad sheegaynaa horena waa u sheegnay xaafadaha noo haray saan oo kale inaan ugu qabanayno dadkan kumaanaa soo xulin saaxiibnimo qabyaalad weji garasho friendis waxaanu ku soo xulnay inay ka mid yihiin dadka labeenta oo xaafadda degan. waxa naga cudaartay dad badan oo labeen ah oo hawlo noo soo bixi waayey. waxa kale oo aanu ku dari weynay dad kale oo labeena badan oo 33 qof ay naga xadiday. dhammaan waa u mahad celinayaa inta ka qayb qaadatay. waxaan aad ugu hambaliyaynayaa guddoomiye Sakariye iyo guddoomiye ku-xigeenada labada waa u mahad celinayaa. waxaan u maleynayaa hadee wixii aad dhahdeen annaguna waa maqlaynay ilaahna waa idin maqlaayay yaani lika waayin. dadkan dhammaan meesha joogana waa kormeerayaal waa ilaaliyaal waa indhayna ku hayaal saasay inii fiirsanayaan. waxa aad meeshan ka sheegteen inaad fulisaan baa laga rabaa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa inta ka soo qayb gashay dhammaantiin. salaamu calaykum. xaafadaha waxaan ka dardaarmayaa xaafadaha noo haray dad badan baan soo wacaya oo musharaxiina oo waxay raadinayaan ergada aanu qoranay inaanu telefoonada magacooda siino. inta noo hadhay ma siinayno iyaysan ugu soo lugooyin meeshay ka raadsanayaan iyagaa yaqaana. waxaa la rabaa dadka in la wareeriyo oo luulo hadda ergada ka mid ah gurigeeda 5 group ugu tagaan oo ay u sheegtaan si allaale siday luul codka u siin lahayd. marka hadda annaga ka xanibnay waa lagu imaan lahaay. dhammaantiin salaamu calaykum. shaqadii fiicanayd ee ay soo qabteen ee muhiimka ahayd maaragtay bisheen caasimadda iyo degmadiiba aad baan idinkaga mahad celinayaa. marka waxay farxad bay ii tahay maanta inaan codeeyo oo aan maaragtay xuquuq yeesho qof oo aan codeeyo farxad bay ii tahay. waana uga mahad celinayaa maadaama aan degmo ku noolahay xaafadda kowda Agost oo xaafad muhiima
aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa tartamayaashii saddexda dhalinyarada ah dhalinyaradu waa halbowlaha waa lafdhabarta waxyaabo badanaa la yidhaahdaa maantana way ka muuqataa inay hankooda iyo aqoontooda ay maaragtay ugu tartamayaan inay hoggaanka ka bilaabaan meesha ugu hooseysa taasina waxay ku tusaysaa qiimaha hoggaaminta in qofku intuu ka bilaabi lahaa meelo sare inuu ka soo bilaabo marka Sakariye iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinla shaqayn doonaa waxaan qayb ka noqon doonaa degmada iyo xaafadda in xaafadda la shaqeeyo shaqada ugu horeysa oo la qabanayana waxaan rajaynayaa in qayb ka noqdo tiimkan hadda halkan joogana waxaan ka codsanayaa bal shaqada ugu horeysa marka xafiiska uu la wareego inaynu qayb ka noqono shaqada wax ka qabanno aad iyo aad bay farxad iigu tahay aad baa u mahadsantihiin waa idin soo dhawaynayaa ma qiyaasi karo maaragtay waxaan idhaahdo aad baa u mahadsantihiin dadkiina codeeyey iyo kasoo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhab ahaantii saddexda wiil oo halkan soo istaagay oo ku tartamayay gudoomiyaha 1 August waa xujay ahayd maahine dadaan kala dooran karna maysan ahayn qof la soo baxa baa shardina la kaga dhigay saddexdaba waa qaadan lahaa intii markay wada hadleen waxaan iri yaa xaafadda saddex meelood noogu qaybsho oo qof walba yiraahdo gudoomiyaha laga rabaa waxay ahaayeen dad aan barnaamijkooda u wada bognay dad wada firfircoon dad wada mutacallimadoodii waxay barteen ay ka muuqato dad hufan dad aanu faamiliyadooda iyo meelaha ay ka soo jeedaan aanu garanayno oo maaragtay ammaano galah bay ahaayeen dhab ahaantii labada wiil oo maanta soo bixin waxay noo yihiin kayd barasho wanaagsan dhammaantiin idinkoo ilmaha iyagiiya laakiin idin maanan kala aqoon midkiina maanta ka hor ma aanan arkin iyo maaragtay intii haddeer doorashada iyo howlaheeda lagu jiray waxaan idin leenahay dhammaantiin waa wada guulaysateen waxaan idinka rajaynaynaa inaad gacmaha isqabsataan oo isla shaqaysaan waxaan rabaa inaan si gaar ah u iraahdo Sakariye Cismaan Maxamuud Sakariye nin xil qaaday eed qaad waa la guulaystay imtixaan badan baa daba socda xaafadan 1 August soo ballaaran iyo wixii aad halkan ka sheegtayba waa ka rabnaa insha Allah laakiin anigu waxaan ku darayaa waxa nin ani yiri dad iska reeb maadaama aan maanta halkan goob joog ka ahaa waligay aanan madax 1 August iyo mid degmatoona wax ka dooran waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqeeyo mas'uuliyiintii maanta halkan ka soo baxday gabadha iyo wiilka haddii ilaahay idmo waxay iigu yimaadaanna ay maaragtay birta barakaad birta golis bay dhahaan birta golis ay iga saaran tahay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddigii soo qaban qaabiyay doorashadan oo ay ugu horeeyaan madaxda dawladda hoose